asalkoodii waxay ka yimaadeen baadiya daaqsinkaas markay ku jiraan iyagoo kala fog oo ruux halkaa uu joogo kana halkaa uu joogo iyo sheekaystaan war haye war samee iska waraan marka codkaa dheer isagoo ruux kale ugu dhowaaneyn iyo codkii halka ruux walba meeshaas iyuu gaarsiinayaa taas marka waa qodobka koowaad ee sabab u ah in muxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed ay ku hadlaan codka dheer الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات حلاقي هاي مالي وناكسن وحرب أنا ندلو وذاقو موضوعي رو كسابسن محي أمد الصوماليات عد كدير وهدلان سوكال محو دباته وكيني كرا dadka muslimiinta ah maxay diinteena ka qabtaa dhorkaas qodob yaan rabaa inaan isdul taago insha Allah oo aan umadeeda la wadaago ugu horeyn waxa jira asbaabo keeni kara in dadka ay cod dheer ku hadlaan dadka Soomaalida ah sida la wada ogyahay asalkoodu yaani waa bulsho reer miyi ah oo baadiyaha ay ka yimaadeen marka waxa la yaqaan markay daaqsinka ku jiraan oo xoolahooda ay daaqsanayaan iyagoo aad iyo aad u kala fog ay sheekaystaan yani waa sababta ugu weyn ee dadka ay sababi karto inay cod dheer ku hadlaan iyagoo gawaarida dhexdooda ku dhex jira iyadoo suuqyada jooga xitaa meelaha cibaadada masaajidada gudahooda ay cod dheer ku hadlaan marka waxa sababay asalkoodii waxay ka yimaadeen baadiyaha daaqsinkaas markay ku jiraan iyagoo kala fog oo ruux halkaa uu joogo kana halkaa uu joogo ay sheekaystaan war haye war samee iska waraan marka codkaa dheer isagoo ruux kale uu dhawaaneyn iyo codkii halka ruux walba meeshaas iyuu gaarsiinayaa taas marka waa qodobka koowaad ee sabab u ah in muxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed ay ku hadlaan codka dheer waxa kale oo jira sabab ayadana soo kale aad iyo aad u weyn ee kamid ah ama keeni karta in Soomaalidu ay cod dheer ku hadlaan waxa kamid ah marka laga hadlayo abaabinta dhalaanka quraanka marka la barayo waxa lagu abaabiyaa in muxuu ahaa dhalaanka yarka quraanka baran in cod dheer uu ku aqriyo arintaas ayaa lagu abaabiyaa taa waxa ku tusinaya waxay dhigi jireen afar qawaacid ya quraanka lagu bartaa waxay dhigi jireen hooyo qalqaalo badan aabbo wax quur leh macallin qaari ah iyo arday qaylo dheer marka waxay dhigi jireen afartaas qawaacid ya quraanka lagu bartaa marka baraha baray quraanka kariimka ah ya dhalaanka waxa ku abaabiyaa inay cod dheer ku aqriyaan wuxuu yiraahdaa qayliya ayuu yiraahdaan marka waxay sababtay in muxuu ah Soomaalidu ay ku hadlaan codka dheer oo ay la qabsadeen muxuu ahaa in ruuxa uu aamusayn oo muxuu ahaa mar walba uu jecel yahay inuu cod dheer uu ku hadlo isagoo aan dareemaynin xitaa markuu mobilku ku hadlayo shakhsiga Soomaaliga waxaad moodaa in muxuu ahaa shakhsi dhagool ah oo kale inuu la hadlayo kala moodaa marka dadka way la yaabayaan marka waxa keeni kara asalka oo ah bulsho reer miyi ah oo baadiyaha ka yimaaday inay yihiin Soomaalidu iyo sidoo kale markii la abaabinayo quraanka la baray yaa waxa lagu tarbiyay muxuu ahaa codka dheer inay quraanku akhriyaan oo sida ay u qayliyaan yaa lagu soo tarbiyay marka taas waxay sababtay in muxuu ahaa aynu la qabsano arinka isaga oo ah cod dheer inuu ka hadalno inay noo noqotaba wax lagu garto bulshada Soomaalida meel bay caalamka ka joogan marka tan waa shakhsi Soomaali ah muxuu ahaa waxa kaliya kugu filan hadalka faraha badan waxa laga yaabaa isagoo gaariga meesha dambe fadhiyo inuu la sheekaysto shakhsiga hore inay wada sheekaystaan halka muxuu ahaa dadka kale dunida ayna sida ay ahayn soo kale waxa jira qodob kale oo runtii keeni kara in Soomaalidu ay cod dheer ku hadlaan waxa kamid ah Soomaalidu ma aha bulsho yaani wax akhrisa ma aha Soomaalidu waa bulsho inta badan jecel hadalka iyo muxuu ahaa iyo aad u jecelyihiin marka akhris la'aanta inaan ahayn dad wax akhriya yaa waxay keentay in muxuu ahaa ay noqdaan kuwa muxuu ahaa sheekaysta
oo muxuu ahaa sheekadooda in ahayn sheeko kooban iyaga kaliya ismaqashiyo in ahayn een ceeb hataa in u arkin in ruux walba wax arrimo sir ah wax walba laga sheekeysanaya gaariga gudihiisa meel walba lagu sheekeysanaya marka taa waxay keentay in macnaha in ahayn Soomaalidu bulsho akhriska ku wanaagsan maaha oo dadku wax akhriya maaha halka muxuu ahaa dadyooga caalamka ku nool ee inta badan ay ku mashquulaan markuu fursad u helo ama gaari uu saaran yahay ama safar uu ku jiro ama wuxuu isku mashquulinayaa marab inuu wax akhriyo oo muxuu ahaa buugaag uu akhristo wax akhristo laakiin shakhsi Soomaali wuxuu aad u jecel yahay inuu hadlo inuu muxuu ahaa wax sheego inuu sheekeeyo taas yaa ka go'an shakhsiga Soomaaliga haddaba haddii aynu ogaanay maxaa sababi kara in Soomaalidu cod dheer ay ku hadlaan oo inaynu waxaan ku soo sheegnay in dad reer miyi asalkooda iyo marka quraanka la barayo la yiraahdo cod dheer ku akhriya iyo bulsho aan wax akhrin inay yihiin haddaba marka waxa arrinta muhiimka waxay tahay shariicadeena iyo diinteena islaamka marka loo fiiriyo arrinta ayada maxay ka qabtaa waxay soo galaysaa dhibaatada muslimiinta iidaa'ul muslimiin marka laga hadlayo muslimiinta qof muslim in la dhibaatay ama dhib loo geysto muxuu ahaa iyo soo galaysaa carabka in qofkii aad ku dhibaatayso maxaa yeelay muxuu ahaa hadalka aad ka u sareeya aad ku hadlaysid dadka muslimiinta way dhibsanayaan muxuu ahaa marka lama ongolo qofka muslimkaana in muxuu ahaa qofka uu ku dhibo carabka inuu ku dhibo inuu muxuu ahaa gacmihiisa uu ku dhibo waxay ka mid ahayd waxyaabaha muxuu ahaa marka laga hadlayo qofka muslimka al-muslim al-haqiqi marka laga hadlayo xadiiska nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam al-muslimu huwa man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi يعني مسلم كحقيقي قال هذا مسلم كعادي كما هذلين أي واحد دباتي أي واحد دلا أي واحد عارف القادين كما هذلين لكن مسلم كحقيقي دينتين وحي كتب بانته والنبي كتب عليه الصلاة والسلام إنه يهمتك يعني عرب كيس اللي جنة بتقله سيدو كله محوها جعميس اللي جنة بتقله مركه هذا دي عرب كاجي محوها إن دتك إن كنا بتقلين ومحوها أري ومحوها قايلو فربضان يمحوها دتك كل بسنيان waxaa soo galaysaa dadka muxuu ahaa dambi fara badan iyo arinta ayada ka soo gaari kara oo muxuu ahaa inaan muslim xaqiiqi aan ahayn yaa ka dhalan karta xitaa shariicadeena diintu waxa ay diiday oo nabigu u diiday kaleey salaatu wasalaam waxa la akhriyo wax ugu qiimaha badan waa kitaabka Ilaahay Quraan Kariimka waxa la diiday in muxuu cod dheer inta ku akhriso oo dadka aad ku dhibaatayso xataa waa la diiday waxa loo talagalay adiga isma qashiisid muxuu ahaa nafsadaada laakiin muxuu inaad qiraa'adaada Quraan Kariimka xataa inaad dad ku dhibaataysid muxuu ahaa yay diinteena ay diiday haddaba maxaad u maleynaysaa dadka muxuu ahaa codka dheer ku hadlaya masaajid gudihiisa iyagoo ku jira dadka dhibaateynaya dhalinyarada sidoo kale gidaarada intay fariistaan muxuu ahaa dariska ku qaylinaya codka dheer ku qaylinaya waa dambi arinta ayadan waa foolxumo maxay soo muslimiinta la dhibo oo muxuu carabku lagu dhibo ay soo galaysaa haddaba marka waxa muhiim ah maadaama inagu aynu nahay shacabka Soomaaliyeed aynu nahay dad muxuu ahaa bulsho hadal fara badan muxuu ahaa hadii hadlaan jecel in waxa waa yani diinteena islaamka arinta ayada waxay ka istaagtay mowqif aad iyo aad u adag marka aad iyo aad u qurux badan dadka masaajidada markay soo galaan in mobilada dadka ku hadlay ama meel kale ha joogay codka dheer oo ku qaylinay iyo gawaarida dhexdooda dadka qaar dad xanuunsana ku jira dad dhibaataysan ku jira oo aan xamili karin codka dheer dhalinyarada sidoo kale gidaarada intay fariistaan doodaha ciyaaraha iyo waxyaabo kale ka dooday iyagu ma dareemayaan hase yeeshee dariska iyo dadka iyo qaylada ayada dhibsanay marka sideedaba bulshada Soomaalidu arinta qaylada wax dhaqan ay u tahay laakiin dhaqanka waa dhaqan suuban oo diinteena muxuu islaamka la jaan qaadi kara ma aha waa dhaqan xun oo aad iyo aad u fool xun oo qaylada ku saleysan waxa muhiim inaan carabadeena iyo waxaan lagu dhibaateeyna macnaha hadalkeena kama dhigna in sheekada iyo wax ay dambi ay tahay kama hadlayeen in muxuu codka dheer wax lagu dhibaateeyo yaan muxuu yaan ka hadlayay marka barnaamijkeena kaga hadlaynay Soomaalidu iyo in cod dheer ku hadlaan iyo shariicadeena diinteena maxay ka qabtaa intaas aan ku soo koobayaa wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh